السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعاد كصباحي والله channel official subscribe channelka like share kambalkan ku dhufasay oo ugu daawated video dambe aan soo gelin doono. Halkan maanta waxaa idin wadnaa sheekadaas hadda maqli doontiin dhageysi wacan. Walba inta aan guriga ku soo laaban waxa aan ku qaweysan jiray masquulaha ku yaala banaanaha si ay u ogaaneen shaqada aan ka soo baxay ama shaqada aan qabto. waxaan jeclaystay in aan gabadhayda iskuul waxbarasho geeyo. waxaa kale oo jeclaystay in ay la hor istaagaan sharaftooda dadka kale. ma rabin in ay caruurtayda dadka hoos u fiiriyaan sida aniga ahay oo kale. wixii aan soo shaqeeyo dhan ayaga ayaan waxbarashada uga bixin jiray. weligay ma iibsanin shaar cusub. wixii aan ku iibsan lahaa caruurtayda buga ugu gadan jiray. meelaha qashinka lagu guro ayaa nadiifin jiray waayo wada kale ma haysan aan ku shaqaysto. kadib markii gabadhayda u gudbaysay college-ka ayaa lacag ogolaansho la weydiistay anigoo awoodin lacagta. maalinkii xigta shaqada ma aadin. waxaan fadhiistay qashin qubka anigoo is xoojinayo kana qarinayo ilinta kuwii aan isla shaqaynaynay oo isoo eegaya aynaysan jirin qof ii imaaday. waxaan awoodi waayay in aan gabadhayda ka hortago maxaa yeelay lacagta college-ka ayay i weydiinaysaa. maalinkii dambe shaqada kadib kuwii aan isla shaqaynaynay ayaa yimaadeen. kadib ayay yaag fadhiisteen. waxay weydiiyeen inaan tixgeliyo walaalnimada ka dhaxaysa. isagoon u jawaabin ayay lacagtoodii ay shaqeeyeen maalintaa gacanta ugu shubeen. markii aan isku dayay inaan tiido lacagta ay siiyeen waxay ugu jawaabeen anaga dhib ma lahan. muhiimadda waxaa weeye inay gabadha waxbarashada u socoto. maalinkaas anigoo qubaysan ayaan guriga tagay. kadib gabadhayda ayaa jaamacadda qalin jebisay. gabadha ayaa shaqo loo qoray. caruurtii oo dhan ayaa shaqo heleen. gabadha ayaa ii kaxaysay waxayna i geysay meesha aan ka shaqayn. waxayna cunto siisay kuwii aan isla shaqayn jirnay. way qosleen. kadib waxay weydiiyeen sababta ay u samaynayso sidaas. gabadha ayaa ugu jawaabtay aniga dartayda ayaa usoo gaajooteen. maantana waqtigayga ayaa la joogaa. ii soo duceeya inaan cunto idin siiyo maalin walbo. markaas ayaan ka baxay nolosha faqiirnimada. ha sheegan faqiirnimo adigoo caruur haysata. kadib ninkii faqiirka ahaa ayaa noqday taajir. ilaahay awood weyna. fadlan waa sheekada idin soo bandhigeen walaalaha channel official. ha hilmaamin inaad subscribe saartid channelkeena, like iyo share, gambaleelkana ku dhufo si aad ula socotid video dambe aan soo gelin doono. waad mahadsantihiin.